السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي كحيران يوتيوب كينا سيتونو كوليج سودا هذا waxay noo socday asxaabay casharro taxanaha aynu kaga hadlaynay barashada xisaabta ciwaankeenii ahaa trigonometry casharkiisuu keen dambeeyey waxa uu ahaa compound angleska qaabka loo xisaabiyo haddaba casharkeena maanta fiidiyogeennan waxaynu ku fiirin doonaa double angle formulada waxay yihiin sida loo isticmaalo sidoo kale waxaan isla fiirin doonaa dhowr example oo kala duwan oo ka saacidi doona xilliyada imtixaanaadka aad soo diyaarinayso inaad fahanto waxa loola jeedo mid kasta waxa loola jeedo haddaba casharkeena isuu keen dameeyey oo waxaynu kaga soo hadalnay compound angleska wax la yiraahdo baynu kaga soo hadalnay haddaba compound angleska ni casharkeeni ahaa haddii ay tahay daawada markii ugu horeeyay aan soo booqato waxaan kula talin lahayn in casharka laftigiisa aad soo fiiriso si ay noola ambaqaado double angle formulada waxa ay tahay haddaba compound angleska marka aynu ka hadlaynay waxaynu soo sheegnay sin a oo lagu daray b in ay inoola dhiganto sin a cos b oo lagu daray cos a sin b iyadoo maynaysan way jidhay laakiin waxaynu soo qaadanaynaa maanta balasteena cos a plus b sidoo kale waxaynu ku soo sheegnay inay inoola dhiganto cos a oo lagu dhuftay cos b oo laga jaray sin a oo lagu dhuftay sin b sidoo kale waxaynu soo sheegnay tan a plus b in ay inoola dhiganto tan a oo lagu daray tan b oo loo qaybiyey 1 minus tan a tan b haddaba casharkeena isuu ka dameeyey kuwaas iyo saddexdaa iyo saddex kale oo minus baynu ka soo hadalnay haddaba double anglesku xigmadda ay noo xambaarsan yihiin waxa weeyaan wax kale ma ahan ereyga double macnihiisa waxa weeyaan waa garanaysaa waa increase the size of the angle twice yani waa maxay angle-ka ama xagashii shaygii waxa la yiraahdaa waa in la siyaadiyo laba jibaarno tusaale ahaan oo kale haddii ay laba ahayd waa in laga dhigaa 4 haddii ay 3 ahaydna waa in laga dhigaa laba jibaar 6 waa in laga dhigaa haddaba labada qaab shaygii markii aan rabno inaan ku sameeyno double laba qaab aynu uga dhigi karnaa labada qaab aan uga dhigi karno mid wax kale ma ahan waxa weeyaan anagoo isticmaalayna by adding shaygii waxa weeyaan inaynu ku darno oo tusaale ahaan oo kale 2 bay ahayd isla 2 kale baynu ku dareynaa 4 bay noo soo baxay processka labaad ama qaabka labaad waxa weeyaan aan double u sameyn karno by multiplying inaynu ku dhufano 2 inaynu ku dhufano oo meeshii labada inoo ahayd inaynu ku dhufano 2 ay inoo noqoto 4 labada qaab waxa weeyaan baa loo sameyn karaa double loo sameyn karaa haddaba waxaan rabaa inaynu isla fiirino marka xaglaheeni double angle haddii aynu ku sameyno maxaa inooga soo baxaya tusaale waxaynu haysanaa cos 60 baynu haysanaa cos 60 macnaheedu waxay inoola dhigantaa horena waan soo dhiganay 0.5 haddaba double haddaan rabo inaan ku sameeyo waa in waxa weeyaan xagashii waa inaan ku dhuftaa 2 waa inaan ku dhuftaa ama se waa inaan isla iyadii ku daraa marka oo waxaan leeyahay cos 60 oo lagu daray 60 ama se waxaan leeyahay cos 60 oo lagu dhuftay 2 labada qaab waxa weeyaan waxay inoola dhigan tahay inaynu sameeynay double okay haddaba casharkeeni hore annagoo ictimaadayna keenii hore baynu waxa rabnaa inaynu isku xirno labada tan oo fiir hadda waxaanu haysanaa cos
lixdan double haddii aan rabno inaynu ku sameyno macnaheedu weliba anagoo isticmaalayna ku darid anagoo isticmaalayna waxay noola dhigan tahay cos lixdan oo lagu daray lixdan macnaheedu waxay noola dhigan tahay waa anagoo xeerkan isticmaalay oo ah cos meesha ahayd cos a plus a maadaama labada shay ay isku mid yihiin macnaheedu waxa weeyaan waxay noola dhigantaa inaan isticmaalayno laba shay oo isku mid hal shay oo isku mid ah hadaba waxa weeyaan haddii aan ku dabaqno xeerkeena hore aynu u naqaanay maxay noqonaysaa waa cos a oo lagu dhuftay cos a laga jaray sin a maadaama isku mid yihiin meeshii b ahayd wada a bay inoo noqonaysaa macnaheedu waxa weeyaan cos oo square garaysan theta oo laga jaray sin oo square garaysan theta a oo lagu daray a na macnaheedu waxay la dhigantaa 2a macna taasa waxa la dhahaa double kuwaas la dhahaa double kuwaas baa la dhahaa hadaba qaacidada aynu qorno marka double angleska qaacidooyinkiisu waa maxay very sin theta plus theta macnaheedu waa maxay waa double laba jeer baa la isku daray waxay ila dhigantaa xeerkeena hore muxuu ahaa oo adaya aynu soo sheegnay adaya waxaan soo sheegnay sin a oo lagu daray b waxay la macno tahay sin a cos b oo lagu daray cos a oo lagu dhuftay sin b sidaas ay ila dhigan laakiin maanta meeshaydii haddii ay wada a ama ay noqoto ka waran labaduba hadday isku mid yihiin halka maxaa iga soo baxaya waxa iga soo baxaya sin a oo lagu dhuftay cos a oo lagu daray cos b cos a afwan oo lagu dhuftay sin a macna dhamaantood wax kasta waxa weeyaan labada tan ana maxay isku noqonaysaa sin 2a halkana waxa iga soo baxaya maadaama ay isku mid yihiin labo sin a cos a hadaba haddii marka adigu aad taqaano compoundiga angleska haddii aad taqaano macnaheedu waxay la dhigan tahay inaad garanayso isticmaalka double angles hadaba double angleskeeno sin-ta marka ay tahay sin 2 theta waxa ay la macno tahay baan leeyahay 2 sin theta cos theta يعني meeshan hadda ka isticmaalay xaraf baan anigu waxaan isticmaalay theta baan isticmaalay taasi waxa weeyaan waata hadaba cost laftigeedu double-keedu maxay noqonaysaa aan isla fiirino cost-kana double-keeda waxa ay noqonaysaa haday waxaanu soo sheegnay ama compound angles-keena waxaanu ku soo dhiganay cos a plus b oo waxaanu ku soo sheegnay waa cos a oo lagu dhuftay cos b oo laga jaray sin a oo lagu dhuftay sin b waa markii ay kala duwan tahay haddii ay double ahaan lahayd oo sida ahaan lahayd cos a oo lagu daray a waxa ay la mid noqon lahayd dhinac kasta maxay noqon lahayd cos a meesha b dahayd maxaan ku bedelan lahaa cos a laga jaray sin a macnaheedu laba cos a haddii la isku dhuftana waa maxay cos square a laga jaray sin square a tanna maadaama ay tahay a ku dar 2a baa iga soo bixi lahayd sida la ajligeeda costu double-keedu cos oo double waxay ila dhigantaa cos square oo laga jaray sin square theta intaasna waxa weeyaan waa costa double-keeda kaagama baahna inaad xifdiso sidoo kale kaagama baahna inaad ka walwasho kaliya adiga compound angleskaagi ku laabo ka soo dhiraandhirso halka kala soo bax sidoo kale hore waxaan u soo sheegnay markaynu ka soo hadlaynay proofing-ka in sin square theta oo lagu daray cos square theta ay ila dhiganto 1 haddii aan kan iska wareejiyo halka waxa iga soo haraya
cos square theta waxay la macno tahay 1 oo laga jaray sin square theta. haddaba dhinac meel kastoo cos ah oo halakan ku jidha waxaynu ku bedelanaynaa intaas aynu ku bedelanaynaa. halkaana waxa inooga soo baxaya costan maxaynu ku bedelanaynaa 1 minus sin square theta oo laga jaray sin square theta. macnaheedu halkaas waxa inooga soo baxaya 1 oo laga jaray labada tanna waxa leeyahay maadaama ay isku mid yihiin 2 sin square theta. macnaheedu sidoo kale halkaa waxa inooga soo baxay costa oo dhabalkeeda ah in ay yeelan karto qiimo kale. qiimahaasina waa maxay? qiimaha kale ay inoo soo baxay waxa weeyaan in ay sidoo kale ay ii leeg tahay 1 minus 2 sin square theta. haddaba hadda waxaan wareejiyey markii aan ku laabto meeshayda tan waxa aan wareejiyey sinta. maanta costa haddii aan wareejiyo halkaa waxa iga soo baxaya costa iga wareeji sin square theta waxa ay la macno tahay 1 oo laga jaray cos square theta. haddaba waxaan sameynayaa qaacidadeedii baan ku laabanayaa koowaad oo ahayd cos square theta oo laga jaray sin square theta. kadibna dhinac kasta oo maanta sin maxaan ku bedelayaa 1 minus cos square baan ku bedelayaa. marka waxa leeyahay cos square theta laga jaray iska ilaali calaamadaas bracket 1 minus cos square theta calaamadda iska ilaali. kadibna dhinac kasta maxaynu ku furfuraynaa minuska. halkaas waxa inooga soo baxaya cos square theta oo laga jaray minus 1 minus minusna plus cos square theta. kadibna labada tani maadaama ay plus ay yihiin oo isku darsamayaan 2 cos square theta oo laga jaray 1. sidoo kale cos dhabalkeedu waxa aynu helnay qiimo saddexaad oo ay noola dhiganto oo ah 2 cos square minus 1. saddexda qiimo cos dhabalkeedu meel allaale markii aynu joogno ama isticmaalayno ama formula ahaan aynu isticmaalno ama identity aanu isticmaalno saddexda qaab oo mid ka mid ah oo aynu isticmaalayna. sidoo kale taanta dhabalkeedu maxay inoo dhigantaa iyadu? taantu dhabalkeedu maxay inoo dhigantaa? taan oo ah dhabal ah. haddaba intaynan xifdinba waxaynu gadaal ugu laabanaynaa qaacidadeennii ahayd tan a plus b. waxay intaasi iila ay dhignayd tan a oo lagu daray tan b oo loo qaybiyey 1 minus tan a tan b. tan maadaama aad hore u soo xifdisay haddaba maanta meel kastoo b ana waxaan ku bedelanayaa a oo maxay noqonaysaa? bar waxaan fiirinaynaa tan a oo lagu daray a waxa iila dhiganto. halkaasi 2a baa iga soo baxaysa waana 2t meeshaan ka keenay oo dhabal ah. maadaama anigu aan halka a aan ka qaatay t baan isticmaali karaa theta waan isticmaali karaa. okay halkana waxa ila mid noqon karaa waxa ila mid noqonaysaa tan a oo lagu daray tan a oo loo qaybiyey 1 minus tan a tan a. haddaba labada tani maadaama ay isku mid yihiin halkaa waxa iga soo baxaya 2 tan a oo loo qaybiyey 1 oo laga jaray tan a oo lagu dhuftay tan a macnaheedu waa tan square a. haddaba halkaas waxa iga soo baxaya 2 tan meesha anigu a aan ka isticmaalay halkan theta aan isticmaalay theta oo loo qaybiyey 1 minus tan square theta. haddaba asxaabay saddexdaasi waxa weeyaan waa saddexda qaab ee loo isticmaali doono double angleska. qiimayaashana waxa weeyaan inagama baahna xifdin inaga baan sidaan kuu sheegay. kaliya maxaan laga rabaa inaynu marka koowaad fiirino saint oo double waxa lagu helaa intaas, costa oo double waxa lagu helaa intaas, tant oo double waxa lagu helaa intaas. haddaba hadda waxaan isla ogaanay double anglesku waxa ay yihiin formulooyinkooda. haddaba aan isla fiirino marka anagoo isticmaalayna example sidee baynu isticmaalayna. example 1. haddaba
haddaba waxaan rabaa inaan isticmaalo waxaan haystaa sin 30 baan haystaa fiiri sin 30 degree baan haystaa haddaba waxa la yiraahdaa waxaad isticmaashaa double angles isticmaal oo soo raadi sin 30 double angleskeeda macnaheedu waa maxay laba jibaarkeeda soo raadi haddaba qaacidadeena maxay ahayd sin oo double waxay la dhignayd 2 sin theta cos theta haddaba halka markii aan marayo dhinac kasta oo theta maxaan ku bedelanayaa 30 baa ku bedelanayaa macnaheedu waxa weeyaan sin 2 oo lagu dhuftay 30 degree waxa ay la dhigantaa 2 oo lagu dhuftay sin 30 degree oo lagu dhuftay cos 30 degree dhinac kasta waxaan ku bedelay xagashi leysiyay awl theta macnaheedu waa variable waxa leedahay waa doorsoome waxaynu garanay weeyaan dhinac kasta iyada kamid ah waxaan ku bedelanaa qiimaheena marka halkaasi markii 30 60 20 lagu dhuftana 2 lagu dhuftana waa sin 60 degree haddaba calculator-kaaga haddii aad fiiriso oo aad sin 60 soo saarno qiimaha ku soo bixi doona iyo process-kan marka aynu marno waa inay isku mid noqdaan okay haddaba dhinacana waxaan waa 2 oo lagu dhuftay sin 30 cos 30 haddaba calculator-kaaga soo qaado oo waxaad ku fiirisaa qiimaha saxda ah ee sin 60 ama saa ku fiirine systemkii hore casharkii hore aynu ku soo dhiganay ku fiiri sin 60 waxa weeyaan 0.866 halkana waxa weeyaan 2 oo lagu dhuftay sin 30 isaga waxa weeyaan waynu garanaynaa oo macnaheedu waa maxay waa half halkana waxa weeyaan waa half ila sin 30 half bay la dhiganta oo lagu sii dhuftay cos 30 isagana markaan xisaabiyo waxa ay la dhigantaa isna 0.866 si kale waxa ku xisaabin kartaa xeerkeena aynu soo dhiganay ahaa laba kasta oo 90 isku buuxiyo way isleeyihiin macnaheedu sin 60 iyo cos 30 way isleekaanayaan maadaama ay 90 isku buuxinayaan haddaba halkaasi labada tani waxa ay la baxaysaa labada tan halkaasi waxa ay la soo baxaysaa hal markii 0.8 lagu dhuftana macnaheedu waxa weeyaan 0.866 waxa ay la dhigantaa 0.866 macnaheedu waxa weeyaan haddaba haddii lagu dhaho intii xaga lagu siiyo waxaad u isticmaashaa double angleska systemkaas aad u isticmaalaysa mid kasta qiimaheeda ku bedelo sin 2 waxay la macno tahay soo qaado formuladaadii dhinac meel kasta oo theta ay noogu taalana xagashana la siiyay baynu ku bedelanay kadibna waxa weeyaan special angleska mar kasta waxa weeyaan waynu garanaynaa oo waynu xifdisanahay ama inaad xifdiso ama waxa weeyaan inaad gacmihii aad kula soo baxdo labada qaabood waxa weeyaan way noo furan tahay haddaba asxaabi maanta casharkeena waxaynu ku dhiganay double anglesku waxa ay yihiin formulooyinkooda iyo sidoo kale waxaynu ku baranay inaynu ku xalinay sayn anagoo isticmaalayna haddaba asxaabi fiidiyogeena xiga waxa uu noqon doonaa anagoo ku fiirin doona cos sidoo kale ku fiirin doona tan sidoo kale example kale baynu ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay qadaro oo processyo kala duwan iyo qaabab fara badan aynu kaga shaqeyn doonaa haddaba asxaabi intaynu ku kulmi doono fiidiyowgii xiisa oo aynu ku xisaabin doono cos iyo tan waa anagoo isku dooban oo idin la isma dhaafno fi amaanillah